تليكاشي waxaad soo dhigtay baraha bulshada qayb ka mid ah qoraal aad kaga hadlayso in aad qalbiga ka hadli doonto maanta laga bilaabana aysan jirin wax aad qarinayso bal muxuu ahaa qoraalkaasi muxuu ku saabsanaa qoraalkaas wuxuu ku saabsanaa hortaan iyo waxaan ahay aniga horta nin maanta dhaawacyo badan loo geystay dhaawacyo badan oo iga badan jiro oo iga daran oo qalbiyan ahaan soo gaaray xagga dumarka marka qoraalka soo dhigtay wuxuu ku saabsanaa dhanka dumarka waayahay muxuu yahay marka dhibka iyo dhaawacyada aad qarsan weysay oo aad go'aan ku gaartay inaad la wadaagto walaalaha Soomaaliyeed wallaahi go'aankaas wuxuu ahaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago waxa uu talagalay horta aniga muddo aan waxaan ku fadhiyaa wajarkaas 6 sano ah 6 sano waa 5 sano iyo sanadkii lixaad ba hadda socda 2 sano ka mid horta waxa garab isiinayay walaalahii 3 sano ka dambeysane iyo barne waxa ahaa keligay alone صح marka 3 sano waxaan ku hamiyay inaan guursado oo yaani qof maantay maadaama qof keligiisa aan ahay xogaa caawinaad aan ka helo صح maadaama walaal maantay garab taagan jirin ehel iyo qaraabo aan isii joogin anigina aan keligay ahay qof wajir ku fadhiyana aan ahay marka sorry waa ka xumahay daawaday markii xanuun iyo qalbigaaga wax taawanaya ka hadlayso kulay adigu ilmada micishan kari lahayn tariikaashay waan ka raali gelinaa waana ka xumahay waana dareemi karaa marka qof wheelchair ku fadhiya qalbigiisa dhaawac iyo niyad jab u soo gaarsido oo dareemi kara laakiin waa laga maarmaan in su'aalihi aan ku sii weydiiyay ku fariidsiga ama wheelchairka aad ku fadhisid miyaa dhaawac kuu keenay mise qof si gaar ku dhaawacay oo qalbiyan ayaa jira dad badan oo si gaar ah dhaawac jiro qalbiyan ma noo xusi kartaa hadaadan diidin oo aad raalli ka tahay sheekada guud ee ku saabsan arrinkaas qalbi jabka sheekada guud waxay tahay waxaan markaan ku hamiyay inaan dumarka Soomaaliyeed aan siri bal guur iyo wax aan ku hamiyay dumarkii markaan muddo aan qof aan inta isbarano muddo aan la sheekaysto markaan muddo la sheekaysto oo qaarkood xitaa intay iga soo raacaan social media iyo yimaadaan yiraahdaan walaalkeen waxaan rabnaa in Ilaahay dirtiisa qalbiga ku dhisno yiraahdo leeber lahawiyo kadib markii ayaan la socdo yani waa ogtahay qof dumar markii aad la sheekaysanaysid adiga kula sheekaysanayso maadaama aad qofaan adiga kula sheekaysanayso waxay kaaga baahan tahay waxyaabo badan waqti si fiican maadaama aad jeebada xogaa wax ka roon tahay inaad yani shubin iyo xubinba markii ayaana adigu arintaas ay socoto kadib markaan guur iyo wax soo bandhigan waxa la leeyahay inuu qof wajir ku fadhiya tahay maantay wax saameynana malihid xoolana weyn ma haysatid yani ma taliya kuma wadi karo marka maxaa sabab hadii markii dambe saas ay leeyihiin marka hore inay ku soo galaan wallaahi waa mid su'aasha aan isweydiiyay yani aan la sheegay su'aasha isweydiinayo waay qalbigayga iska weydiiyo aan leeyahay sabab marka hore igu soo raacday waayahay taliya hore guur soo martay guur soo maray caruurna way ku joogaan ma sha Allah caruurna ay joogaan waayahay qisooyinkan hadda badan aad nooga sheekeynayso wuxuu ku qotamaa adoo wheelchair ku fadhiya garab u baahan qof inuu ku yimaado oo iska ka dhigo inuu ku caawinayo ama ku garbinayo marka ugu dambeysana uu ballanti kaaga baxo ilaa meeqo jeer ayaad la kulantay dhacdo noocaas dhacdooyinkan ilaa 6 jeer la kulmay 6duna waa same isku mid ay u wada baxayaan isku mid ay u baxayaan tii ugu darneed ma nooga sheekeyn kartaa tii ugu darneed horta taas wuxuu ahaa accident xitaa dhac caadi ah bal geystay aniga oo yani aan qalbigayga markaas imirkayga joogin ما فهمين دعيا ليجيس ما حد ولا جدا
يعني Soomaalidu waxay yiraahdaan ereyadaas oo kale taamal yani wali taagay marka hadda taas inaan ka hadlo oo maanta iyo shaqaas oo ilaartay inaan ka hadlana diyaar muuyi oo taas waa adagtay inaan ka hadlo yani qofkaas horta guuraan dhax maray laakiin